Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dadkayga aan jeclahayow haddii ay tahay markii kugu horeysay ee channelkeena aad soo booqato fadlan nagu taageer share like iyo raaclin dhiirigelin ayay noo tahay kulanti waxaan wanaagsan saaxiibayaal meel walba oo aad joogtaan channelka ogaalka daasoon waxa uu si maalinlaha idinku soo gudbin doonaa cashar ku saabsan mowduuca goor iyo goob waxaa qoray Dr. Saadiq Inow xuquuqda qoraalku waxa ay u dhowran tahay qoraaga dhalinyaro markan waxaanu idiin doornay mowduuc xiiso badan oo aan isleenahay maskaxda iyo caqliga ayuu inoo furfuraya waa mowduuc naga kaxeenayo sheeka maalmeedka arrimaha badan ee Soomaalidu ku hashiin laadahay wuxuu inoo dhaadhicinayaa badweyn aqoon iyo waayo aragnimo ah wuxuuna tusinayaa metafisikada uunka iyo halgamayaashii u sahan tagay si ay ula dagaalamaan garasho xumida iyo ogaal la'aanta aadmigu kaga sugnaa haddaba ku soo dhawaada mowduuca goor iyo goob casharkiisa koowaad mowduuca goor iyo goob waa mid u gub ku ah Soomaaliga horeyna uusan u jirin qoraal Soomaaliyeed oo u soo bandhiga bulshaweynta af Soomaaliga wax ku akhrida bulshadeena Soomaaliyeed waxa ceeb ku ah gaar ahaan faca maanta nool in ayaan wax fikrad ah ka haysan aragtiyalka mugaweyn ee horseedka ka ah ilbaxnimada casriga si gaar ah dhalinyarada aqoon-yahanka ah waxaa nuqsaan ku ah in ayaan fahamsaneen aragtiyalka casriga ee xambaarsan hal abuurka uu aadmigu ku gaaray horumarka tiknoolajiyadda ee kala hormarisay dadkii ku noolaa dhulka ogadiisa fahamkaasi waa mid laga dhaxlay sahankii lagu baadigoobayay ogaalada goor iyo goob aqoonta kala duwan oo aragtiyada goor iyo goob ay curisay waxaa ka mid ah handasada dhaxal curyaha genetic engineering handasada uunka universe geometry aragtida isu dhiganta gaar iyo guud special and general relativity fisikada imisaleyda quantum physics aragtiyalka horumarinta uunka universe development qaraxa jugta weyn the big bang isfitaaxa uunka universe expansion dololada madow black holes iyo kuwa kale oo la mid ah goor iyo goob ee afka qalaad lagu yiraahdo time and space af Soomaaliga caadiga ah waxa ay la micno yihiin waqti iyo boos waqti af Carabi ayuu ka yimid boosna af Talyaani ayuu ka yimid mid uu yahayba labada eray waxa loo adeegsadaa nolol maalmeedka laakiin waxa ay leeyihiin waji kale oo waa eray bixin aqooneed oo la xiriirta aqoonta dabiicad baradka ah physics waxa ku aroorta dhammaan waxyaabaha jira uunka goor iyo goob waa laba agab oo mucjiso ah kuwaas oo aadmigu uu garanayo isla markaasina uu garan la'yahay goor iyo goob waxa ay ugu mug weyn yihiin asraarta dabiicadda ku qarsoon oo muddo qarniyo badan aadmigu sahminayay laakiin dhab ahaantooda la heli la'yahay waxay ka mid yihiin afarta agab oo uunku uu ka kooban yahay labadan agab waxaa dhismaha uunka ku weheliya walax iyo tamar oo afka qalaad lagu yiraahdo matter and energy baadigoobka ogaalada la xiriira goob iyo goor waa hayaan xiiso badan oo laga helayo jiilayaal eebba ku manaystay caqli iyo garaad ay dabiicadda ku fagtaan hayaankan oo ah mid weheliyey taariikhda aadmiga ayaa wuxuu kallifay in aqoon-yahano badan ay ku dalandoolaan araadinta meesha ay ku sugan tahay biyo dhaca goor iyo goob sahankaasi wuxuu indhaha u furay aadmiga oo waxaa laga dhaxlay ogaallo qiimi badan oo lagu haleelay xeerarka metafisikada ee dabiicadda nagaga qarsoon goor waxaa lagu tilmaamaa inay tahay caqligii uunka goob waxaa iyana lagu tilmaamaa inay tahay jirkii uunka farqiga u dhaxeeya wuxuu yahay in goortu ay leedahay dabiicad aanan la fahmayn laakiin waxay siisaa qofka aadmiga ah tilmaan uu ku xisaabsado waayihiisa goobtuna waxa ay leedahay dabiicad muuqato oo dareenka iyaga uu fahmi karo laakiin aamusan haddii goortu ay tahay mid dabagasha xilliga dhacdooyinka goobtu waa midda qaybisa hayndaabka dhacdooyinka mowduucan waxaanu ku helaynaa faham intiisa suuragal ah aanu ugu dhowaanayno labadan agab ee mucjisada ku ah nolosha waxaanu tix raacaynaa heer taariikheedka fahamkan uu la soo maray aadmiga waxaanu isku dayaynaa in aanu bidhaamino ogaalada fahamkii bilowga ahaa ee fududaa iyo sida uu waayaha ula soo rogmanayay waxaanu ku khatimaynaa fahamka iyo ogaalada qallafsan ee laga dhaxlay sahankii qarniyada badan soo socday ee lagu baadigoobayay ahaanshaha goor iyo goob haddaba maxay tahay goor maxayse tahay goob waa laba su'aal oo baadigoobka jawaabtoodu ay ka qayb qaateen xikmadyahano badan taariikhyahano badan aqoon-yahano badan fiisigyahano badan suugaanyahano badan iyo culimo diineed badan waa laba su'aalood oo jawaabtoodu uu aadmigu sahminayay muddo ku dhow 2500 oo sano waa laba su'aalood oo ay ku soo ururayaan dhammaan aqoonta maanta dunida taal goor iyo goob waa laba agab oo haddii aanan la isweydiin la garanayo laakiin haddii la isweydiiyo aanan la garanayn goob haddii aanu niraahno waa deegaanka aanu ku sugannahay waxay la mid tahay goor oo aanu niraahno waa maalinta iyo habeenka laakiin xaqiiqada dhabta ah jawaabta caynkan ah ma ahan mid tilmaamaysa waxa ay yihiin intaasi waxa ay noogu qaybteennay maanta fadlan
dhiirigeli subscribe iyo share deedna ka hel channelkeena taariikho dad nolosha guula ka gaaray iyo warbixino xiiso leh.